haddana waxaan halkan ka akrinaynaa qodobadii intii shirkan ugu socday ka soo baxay laisla meel dhigay. shirkan oo soconayay muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabata 28 August 12 September 2015 oo isugu yimaadeen saddexda gole ee maamulka Khaatumo. waxaa laga hadlay arrimo fara badan. waxaa ugu weynaa oo shirkaas arrimihii laga xaatooday ay ahaayeen iswaraysi, isla xisaabtan, isasixid iyo wixii khaldamay dib in loo saxo oo uu noqdo cashar laga tilmaan qaato. sidoo kale waxaa shirka lagu gurfeeyey laislana meel dhigay qodobadan hoos ku qoran. kow, siyaasadda guud ee Khaatumo oo si hadda madaxweynuhu sharaxayay nabadeyn beelaha Khaatumo oo in beelaha Khaatumo dhexdooda laga shaqeeyo sidii nabad looga samayn lahaa. 3, gobol loo fidiyey isimada maqan ee hadda taladeena iyo shirkeena ka maqan ee reer Khaatumo. 4, arrimaha amniga. 5, baahinta maamulka. 6, arrimaha dhaqaalaha. 7, saxaafadda. 8, maamul wanaagga. 9, xidhiidhka dowladda federaaliga Soomaaliya. 10, xidhiidhka dowladda Ethiopia deegaanka iyo federaaliga Ethiopia. dhammaan qodobadaasi waa kuwo laisla meel dhigay lana fulin doono qodob walba sida uu u qoran yahay. waxaan ummadda reer Khaatumo u rajaynaynaa guul iyo horumar inuu shirkan ii horseedo, iyadoo talooyin badan oo shirka intuu soconayo ka soo baxay loo bedeli doono kuwo ficil ah. waxaa mahad oo dhan u sugnaatay ilaahay allahaas oo si nabadgelyo ah oo jawi wanaagsan ay inoogu soo gabagabeeyey shirkiga aynu ku gorfeynaynay arrimaheena ee Khaatumo. ugu dambeyntii waxaan u mahad celinaynaa deegaankan Balacad oo si sharaf badan halkan noogu soo dhaweeyey, aadna noo sharfay. abaalkaas iyo wanaaggaas waa mid aan u hayno shacabka reer Balacad oo ugu horeeyo Garaad Abshir Maxamed, Garaad Abshir Saalax iyo dhammaanba intii kala qayb qaadatay. waxaa iyana mahad aan u soo jeedinaynaa bahda saxaafadda oo si firfircooni ah intii shirkani socday uga hawlgashay. waxaan si mugle u rabaa inaan ugu mahadnaqo ciidamada Khaatumo oo ilaa iminka iyagoo wax badani ka dhiman yihiin diyaar u noqday inay u dhintaan xoreynta dalka. kuwo badanna u dhinteen, kuwo badanna ay u dhaawacmeen. waa loo og yahay intii dhimatayna waa shahiidiina, ilaahay ha u naxariisto. inta dhaawacu gaadhayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ka bogsoodaan oo wax ku hadha oo xooggooda waxyeela inayan ka muuqan. waxaan haddaba odhan lahaa 2 toddobaad baa halka 3 gole ku shirayeen. golayaashu marmarna gooni bay u shirayeen, marmar la isu dhammaana waa jirtay. waxa la isugu yimi ee shirkan muhiimadiisana ay ahayd maxaa sanadkaa intaa hadda ay Khaatumo jirtay inoo suurtoobay, maxaa inaga khaldamay, maxaynanba si dhaba ugana hadlin iskuna day inaan fulino. waxaan ka baryaynaa in dadka yaga ilaahay nabad dhex dhigo, ilaahay inuu nabad dhex dhigo, nabad aanu ku wada noolaano haddaanu reer Khaatumo nahay. ilaahayna nagu hanuuniyo inaanu sacyi badan u gallo meelaha dhibaatadu hadda ka taagan tahay, inaanu u dhafarno oo u dadaallo oo nabaddaa raadino. xafladeennii way noo soo xirantay sidii madaxweynuhu sheegay.